madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa xariga ka jaray cusbitaalka weyn ee degmada Gaashaamo oo laga sameeyay degmadaasi waxaana ugu horeynta halkaas ugu warbixiyay madaxweynaha wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida maareeyaha cusbitaalka guud ee Gaashaamo iyo Mustafa Caro mulkiilaha shirkadda qandaraaska la siiyay ee Banana Construction. madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar inuu xariga inooga jiro cusbitaalka guud Gaashaamo Primary Hospital ama hospitalka darajada koowaad ee Gaashaamo kaas oo ay ku baxday miisaaniyaddan 80 milyan hospitalkan wuxuu kamid ahaa mashaariicii ay xukuumadii hore ay ku ciyaartay oo iyada oo 30% maraya uu kala guriga ku yimid kaas oo miisaaniyad badan inta lagu xisaab xiray halkan looga tagay isbedelka kadib intay xukuumadda salqantay lagu bixiyay lacag 80 milyan ah waa cusbitaal sidaad aragteen si standard ah oo qurux badan loo dhisay isla markaana sida ku hirgeliyay Mustafa Caro oo ah qandaraaslihii cusbitaalkan dhisay cusbitaalku wuxuu ka kooban yahay waaxyaha dhammaan cusbitaaladu ay ka kooban yihiin cusbitaalka catchment population-ka loogu talagalay ama catchment areas-ka waxa weeye degmooyinka Gaashaamo, Daroor, Marsin, Booq iyo Dig iyo degmooyinka meelaha kale ee u dhow population ahaan dadka halka ku nool waxa lagu qiyaasay 800,000 dadka oo cusbitaalku adeega siin doonana waxay ka koobnaanayaan dhammaan dadka ku nool deegaamadaasi aan soo sheegay anigu waxaan ahay reer Gaashaamooda maan eegaynin maxaad ka faa'iideysaa maan eegaynin lacag intee laga kaaga soo haraysa laakiin waxaan eegayay maadaama ay dawladdu cusbitaalka inta leeg degmadayda u qabatay aniguna maadaama aan qof ganacsada oo degmada Gaashaamo dhashay aan ahay inaan kaga qayb qaato wax tayo leh oo fiican oo hagaagsan oo aan aniga lafteeda mustaqbalkayga aan wax yeelin inaan dadkayga u dhiso meel kasta oo ay wax ka dhinmeen oo aan ku jirin heshiiska iyo agreementiga mas'uuliyadda Ilaahayna siiyay iyo iimaanka Allahna siiyay iyo hantidayada ayaan ku dabaray inaan ku buuxino wax nagaga yaraanayana ma jiraan tayada waad aragtaan imika muddo badan buu hadda xawayaan uu dhisnaa habaysnaa awoodday waxaan isleenahay waad ku dadaasheen waxa kale mahad gaaran oo ah inuu madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar inuu nagu abaalmariyay wax la isku abaalmariyo waxa ugu qaalisan waad mahadsan tahay hadii taana lagu abaalmariyay shirkad ahaan anigoo ah gudoomiyaha shirkadii dhisay halkan Banana Construction Company inaan wax kasta oo hanti ay ka qaalisan tahay waad mahadsan tahay oo si fiican baad u dhistay alxamdulillah rabbil caalamiin aad bay noo daaway arintaas ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne Mustafa Cagjar oo si rasmi ah xariga uga jaray cusbitaalka weyn ee degmada Gaashaamo isagoo sidoo kalena shahaado sharaf ku maamusay shirkadda Banana oo qayb weyn ka qaadatay qurxinta iyo dhismaha cusbitaalkaasi waxay muujinaysaa ahmiyadda xukuumaddu ay siisay in wax laga qabto baahiyaha shacabka laakiin waxaan u baahanahay in dhaqso waxyaalihii la dhisay oo dhan ay shaqo galaan sidaa daraadeed hadda waxaan isku afgaranay xafiiska in muddo gaaban gudahood waxyaalaha uu baahan yahay ee qalabka ah la soo dhameystiro si shaqo uu u bilaabo maadaama Gaashaamo aan rabno inay xarun u noqoto degmooyinkan ku hareeraysan oo ugu yaraan ilaa 800,000 qof oo degmooyinkan Daroor iyo ilaa dhinaca kale inaga xigi iyo maaragtay meel u adeegtay inay noqoto maadaama la rabo intaasi kadib madaxweynaha ayaa xariga ka sii jaray xarunta akhriska ee degmada Gaashaamo iyo keedbiyoodka degmadaasi Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga ee Badda Cas degmada Gaashaamo ee gobolka Jarar.